السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب ريال وحنا هاي منصر محمد عبدي حق ورئيسي أيضا يلا سعتان وحال كان أفضل وحيتانا إذن لو ذاقو وركسو قريدا على اللي حرير تدرد الميديا جنالك اللي جاب صدي حسن مصطفى إسحاق حسن طوب وانين وريا نظامية سيدو كلا وانين وريا مركا لغتا إنا يهين رادو يوتيوب رسا أما يوتيوب قدتكم الدالي حسن مصطفى أقونتا موليا شخصيات ومد وقت ديرة لابكون لبي طبنكي إلا 15كي إلا هدا أيام ولا شقينيني nidaamiyii si lamid ah isagana waa wada shaqeynay 2018 ilaa iyo hadda dad asxaab aan wadanahay dhamaantood sida awoodeed dhacdo markay soo ifbaxday Xasan Mustafa wuxuu sheegay iyo gudoomiyihiiba Durdur Media in janaalka laga jabsaday arintaas jabsigan uu ka dambeeyay nidaamiye uu ahaanin ayaga la shaqeeya markii laakiin uu ka tagay kadib dhacdo ay dhacday sida awoodeed qadka WhatsApp-ka ayaan ku wada hadalnay nidaamiye waan wada hadalnay waxaan ka hadalnay aad loo jeediyay waxa uu asaga ka og yahay wuxuu noo sheegay inuusan asaga bari ka yahay laakiin sidoo waraysiga u dhacay waraysiga sida tan u dhacay WhatsApp-ka ayaan ka wada hadalnay waxaan weydiiyay su'aalaha aad idinku is weydiin lahaydeen in badan oo kamid ah iyo waxa asaga naftigiisa nidaamiye eedan intaan la eeg iyadoo loo jeediyay uu uga aamusnaa intaan waqtiga marka waxa uu ku jawaabay sida tan qaybta u horeysa waraysiga su'aasha ugu horeysa aan weydiiyay waxay ahayd waxa lagu soo eedeeyay bal waxa ka jira nidaamiye aad iyo aad u maasan tahay nidaamiye ku soo dhawow janaalka xog waraysi ugu horeeyay aad bixisay inuu yahay dareemi kara bal waxa sharaxaad naga siisaa nidaamiyow waxa lagu soo eedeeyay in janaalkii Durdur Media nin ka dambeeyay inuu jabsaday in adiga tahay maxaa ka jira arintaas waa maasan tahay Munasar Maxamed Cabdi adiga xog waraysi waan salaamaya runtii inuu Munasar adiga waa garanaysaa magacaygu waa Cabdullaahi Saal nidaamiye kuma cadheelahay baxday saxaafadda ka wada shaqeyn jirtay Muqdisho aan wada joognay dalsan TV aan ka wada shaqeyn jirnay ma u baahnaysaa in xadgudubyo kaasa iyo tuugnimo iyo xaalado badan aan ku suganahay marka Durdur Media waxay dadaan la shaqeynay muddo ka wada shaqeynay marka nidaamiye qof walba ka dhigay ma rabo inaan wax badan ka sheego waxaan jeclahay markasta inay guuleystaan dadaalaan maadaama aan aniga guuleystay dadaalay dad badanna ay meeshaas magacyo ka soo bixiyeen marka waa meeshii lagu bartay dad badanna ay ugu barteen dad badanna lagu caawiyay anigii ayaa hadda ku soo biiray oo jadwal ii talaxeen meesha ku soo biiriyay ma fahanti waaga nidaamiye Durdur adaa ku wata Durdur dada ka shaqeyn jiray soonkii aan ku soo biiray aniga aflagaada meel fanaaniinta lagu caayo dadka lagu aflagaaday markaan ku soo biiray waxaan go'aansaday maadaama aan hadda dad aad u wanaagsan aan la shaqeyn jiro adiga aad ka mid tahay meeshaan maadaama xumaan meeshaan lagu wada jiray inaan wanaag u bedelno keenno dad aan caawino sharafno madaxii shaqadii shaqaalaha meesha ka noqday waxaan aniga ahaa nin u hadlayo bulshada kaamirada horteeda imaan jirnay aniga Xasan Tamni meesha madax ka ahaa marka kaamirada horteeda dad imaanaya ahayd marka ma u malaynaysaa in eedeenta Gmail la jabsanayo kaamirada horteeda ma laga jabsaa mas computerka waa gart computerka laga jabsaa marka computerka aniga ma qaban jirin marka howlahaas iyo dadka lagu tuhmaayo nidaamiya meeshan ka tagay hadii ay tahay waa gooni hadii aysan ahayn oo ay la jabsaday meeshan in la raadiyo dadkii jabsaday ani waxa uu maleynaa Xasan Toob wixiisa inuu haysto oo kaliya barbugaanto iyo magac dil iyo sharaf daro oo aniga ii keenay ay tahay waxa dhan uu sidaan u sameeyay aniga waa u sheegay meeshan cid soo martay dhibaatadii iyo xaaladii taageed meeshan waa la socdaa aniga waa og yahay Xasan Toob haduu imaqlaayo marka nidaamiye tan iyo shalay dadkii lagu dhibaateeyay hadii imaqlaayaan ukaadi dadkii lagu dhibaateeyay hadii imaqlaayaan dadkii lagu sharfay hadii imaqlaayaan meeshii hawshaas iyo ka socotay qof walba uu og yahay waa og yahay Xasan Toobna uu og yahay ma fahanti aad iyo aad waxaan rabaa meeshaas shalay waa ka shaqeyn jiray maantana kama shaqeynayo aan dhahay marka ma jabsan doono ilaahay ma uu kalifo baahidaas ima hayso markii Xasan Toobna waxa la yaa guuleyso Gmail-kaaga dadkii jabsadan raaso cid kula wadaagi jirta waxaaga ma lahayn kula haysan jirta ma lahayn waxaaga raaso والله أنا شقيسنا يا وبحيا أدنى شقيسه أنت صح ها إنتان إن لأج
eedda waa weyn tahay intaan marka maxaa u aamusneed adiga maxaa ay ahayd maxaa xeerinaysay oo aad la aamusneed intaan waxaan uga hadli waayey waxay tahay xasan toob iyo anigii laba maalin ka hor aan kala tagnay intaa la jabsan ka hor laba habeen ka hor aa la jabsaday anigii hadde waa ka maqnaa meeshii waan baxay maalin habeenkii way shaqaysteen maalintii waa ka maqnaa habeenkii kale shaqaysteen maalintii kale ayaa la jabsaday oo shalay ay ahayd marka meesha la jabsadayna hadde waxaa anigi isoo gaartay in dacwo saldhigii iga taalo anigina ligu tumaaya inaan jabsaday automatic waa baxay saldhigii yaa tagay waxaa lii sheegay in xaalad ay jirto waxaana aniga aan jabsaday marka cadeemo iyo oobigii markii la qoraayay waxaa jirto qofka waxyaabo la weydiinayo xasan toob waxyaabihii la weydiiyey iyo waxyaabihii ugu soo eedeeyey inta badan way isyeelan waayeen maadaama uu yahay qof hadde wax badan inuu qarinayo laga dareemayo mafahanta marka wuxuu ii sheegay aniga inuu idilaayo youtube lacag badan uu ka sameeyey fangareenayo askar badan iyo dowladda iyo madax badan uu yaqaano xafiis walba aan laga celin karin sidaas darteed wuxuu dhahay igana waa ku dilaa lacagna waa haystaa wax aaweynaya ma lahan uu dhahay ma fahanta waa gartay aad marka waxaan leeyahay cid dili karta ma lahan walaalkii xasan toob la guursaa leeyahay anigana hadde waa igaasaa naf walbana hadde ilaaha maanta nagu beeray maanta belina ilaaha bixinaayo ma ahan youtube lacag shaqeeyo ma ahan masaakiin la dhaco ma ahan xaalado kale qofka noloshiisa cagajuglayntaas ma aha marka intaa kula shaqeynayo waxaa iga shaqaysatay kugu anfacdo anna maanta waxaan leeyahay aniga shaqaysanayo waa guulaysa bulshada ku jira warkan uu soo gaaray maxaa usoo jeedinaysaa waxaan arkay hadallo aan ku qanacsaneyn oo meesha lasoo digaayo sababo jira aawadeed waan ka hadlaayay waxaan samayn doonaa video aan kasoo muuqan doonaa kaas oo aan warbixino iyo hadallo badan aan usoo gudbin doono hadduu eeba karaan noqdo aniga ninkaa shalay taqaaneen wanaaga ku taqaaneen sharafta aad ku taqaaneen ah waxaan diyaar u ahay wax walba oo jira inaan sheegi doono xaqiijin doono aad iyo aad umahadsantahay nidaamiye abdiqaadir nidaamiye ayuu ninkaas ahaa nidaamiye siduu sheegay hadda daawadayaal aad maqli karteen waxay ahayd inuu arrintaas beri ka yahay inuu hadda janaal furanayo inuu ka tagay durdun media oo isaga wax raada uu ku lahayn arrinta noocaas oo kale iyo dhibkii dhacay inuu si walba isku cadeyn karo isku cadeeyo diyaar uu yahay dhinaca kale xasan mustafa isxaaq xasan toob oo dhibana ah oo janaalkiisii laga jabsaday walaalkay isaguna wuxuu leeyahay ninkan ayaa iga jabsaday hadda arrintu waxay taagan tahay sidee wax loo xaliyaa runtii isku dayo badan iyo dadaalo badan la sameeyay teamka durdur media ay wadaan horta rajo uu leeyahay janaalka in dib loo soo celiyo ilaa hadda markii khubaro badan oo IT-ga iyo isku dayo badan la sameeyay oo aan isku daynay team badan laakiin waxa dhibaatada ka taagan tahay waxay tahay janaalka ma la delete-gareyn oo lama baabi'inin weli wuu shaqeynayaa laakiin private laga dhigay macnihii qofka kaliya adminka ah ee gmail-ka haysta ayaa arki kara dadka kale waxay daawan lahaayeen ama wixii loo soo bandhigi lahaa ayaa laga qariyay marka sidoo hadda nidaamiye sheegayna isagu hadduu beri ka yahay runtii waxaa muhiim ah in arrinta meel dhexe lasugu yimaado la baaro la hubiyo si qoto dheer loo fiiriyo suurtagalnimada arrintan sidoo kale in lala xiriiro shirkadda weyn ee YouTube ama Google-ka dabcan waa wax sahlan in fariin loo diro marka kadib xal baa imaan kara laakiin hadda waxay taagan tahay oo dadku isha ku hayeen ay la fajacsanayeen waxay tahay nin la shaqeynayay durdun media sidoo u jabsaday sidaad maqli karteen hadda waxaan qiyaasayaa inaad ka qanacdeen dhinaca kale warka uu asaga sheegay ee ah inuu asagana uusan ku lug lahayn dhinaca xasan toob iyana ay sheegeen ayaguna inuu ninkaas ku lug leeyahay hadda arrintu meesha inoo taagan tahay saaxiibayaal waxaad la socotaan xog waraysi TV waxaan idin leenahay kulan kan xiga intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo